saacadu markay ahayd magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guulaysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisu deeqa yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeedada iyo danta ay kala haydna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaan noo cadeeyay ciidanka booliiska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyayna waxa ka soo baxay in waxaan ay nin ahaan u isticmaalaysay iyadoo waa su'aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda af joogo lama adeega iyada baa joogtaa inta lagu soo eedeeyay waa ay jidha dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baa leeyahay dukaankan ku waardiysto meel go'aan madow hadda aragto shukaanso gabadhaas iska ilaali hooy dhaka weyno ninkaas aan la hadlayaa shaarka cad qabay midigta xiga gabar cunug iyo ayadoo nafteeda halidaysa baan gurigeyga keenaanu